سيدي لبادين حديث النبي نوغو شيغي في السنن نبا نين دول ka iibiyay dhulkii markuu gatay waa dhul beereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahab markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay oo la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yiri war dhulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waadi lowsaneeda iga qaada buu ka yiri markaas uu may anu kuma ogeyn adaa ilaahay ka siiyay adaa iska qaada buu ka yiri وروحنا أديك عليه إيجا قاضو إنك الزمن كأنه معي وروحنا أنيق عليه السي وينتين وحكوتك الله منه دول كان أنيق عليه قري كان أنيق علىها مهردنا أنيق علىها وحنا أنيق علىها بس كويس إننا إياك واحد تاجنا يندتكم مركي هجاجين وروحنا أديك عليه إيجا هو إياك قاضا ما يوم ما دعي كرتو ماي أدا إسكالي أدا إلهي كوسية إسكا قاضو may dhulkan adaa iga iibiyay malaha waad halmaamsantay adiga iskale iga qaado waxaan maliya anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tageen hay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kale leh ha iga qaato kana wuxuu leeyahay war maliya isaga ilaahay siiyay ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa قضاء الزمن كان لقى بيني أورن لها حولها دولة ده لسه كنا إذا غرب بس كفي عن وجراني لكن كود وعسك جرى الدولة ده وش غير وقتها حولها دولة ده لسه كنا هلها كم حينكونا مورن وحويري هذا محل هاي أبد ويل هذا كنا قبل لبدا اسمه غوريا لبدا أنا حولها صيب ويلي بالفرس إصلاح هو عجيب هل كان هذا إصلاح هذا عجيب هل كان هذا حماة لكن ده يسوق قصة كله صدح نبى النبي عيسى عليه السلام سيدي ولا السعودين أي مادين مل بنانك وذهب كيالو دايماًكو مركز النبي عيسى كويد وحن ودايما والذهب والجوهرات مركز سيد هذا النقاط مركز نبي إلى هاي صدري هي أدوية مال موضة مرتبو كيدي مركز ده أنا كقاعدنا هنا ده هذا القاعدة ثاني راعي مثلا واديك هدينا وقاعد بودي ديني أدوية اسمه هذا بوكيدي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدح دين ويكهرين بلد النبي أي انضر ذاك مركز الذهب كي قاتان وإلا السعودين وإلا اللقيين مقالة مركز ودوا هذين بيد هذين حدان مالين قال له ولا نقدعي هبين هنكو بيقنو لكن وقع جونينا ويتشدين وعيد هذا الله بالذهب كاسي إلى لسوا من مقالة انتو تقو cuntaha inoo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolku ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini'aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeena buu nagu fiican yahay ninka markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halka ka gali maydkiisana bahasha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeena ha kala qaadano marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisa ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adiga uu kugu fiican yahay cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintaan dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadii buu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way khaarijiyeen nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaala iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yiri adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaaga waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb nabi alayhi salatu wassalam wa riyada nabi maxamed uu leeyahay dhageysta bini aadanka waslad baa ku jirta haday hagaagto jirko dhan baa hagaagi haday baanaatana jirko dhan baa baanaan oo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yiri qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa kaliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisu